وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص التي دلت على الله الجليل. قصص تجلت حبكة تالله ليس لها مثيل. تالله ليس لها مثيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وانساب مثل السلسبيل. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، waxaynu ku soo jirnay qisaskii qur-aanka gaar ahaan hordhaciisii saddexaad weeye. qur-aanka ilaahay markuu ilaahay qisooyin fara badan inooga warramay, qisooyinkaas ilaahay ka warramay wuxuu siiyey tilmaamooyin. wuxuu dhowr tilmaamood buu ilaahay bixiyey. dhowrkaa tilmaamood baynu dul istaagaynaa. suuradda loo yaqaano suuratu yuusuf si guud ahaan waxay ka hadlaysa waxaa weeye, nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa waxaa la leeyahay yuusuf calayhi salaam waxaa colaadiyey oo xasday walaaladii la dhashay, baa colaadiyey oo xasday. xasadkoodii ay walaalkood u qaadeen wuxuu ku salaysnaa nimcadii wanaaggii ilaahay la doonay. nimcada ilaahay siiyey nabiyullaahi yuusuf bay walaalihii ka xasteen. markii dambena waxaa dhacday in maxaa la odhan jiray nabiyullaahi yuusuf dadkii walaalihii ay xasday inuu ka guulaystay. macnaheedu wuxuu yahay nebi maxamed baa waxaa leeyahay suubanow, dadkaan ku colaadinayo ee ilmaadeerada ah ee ku xasdayo ee nimcadu ilaahay ku siiyey ka xun, ha u aabayeelin, u sabar, u dulqaado, adiga ayaa ka guulaysan doona. nuxurka suuraddu si guud intaa weeye. suuradda bilowgeeda ilaahay wuxuu ku yidhi naxnu naqusu calayka axsana alqasas. sheekooyinka midii u wanaag badnayd baynu kaaga warramaynaa. in sheekooyinka qisooyinkana looga warramo waa karam iyo deeq iyo fadli alle. fadligaa wuxuu keensanayaa in sida uu ilaahay wax inoogu sheegay aynu u rumayno, siduu ilaahay warbixinta inoo siiyey inaan u qaadanno, in warbixinta ilaahay inu siiyey aynu ku koobnaano, aynu meelo kale aynu wax ka raadin. hadafka koowaad iyo tilmaamta koowaad uu qisaska qur-aanka ilaahay siiyey taaba ahayd. taas macnadu yahay dadka in la doonayo markii loo warramayo, loo sheekaynayo qur-aanka qisaskii ku soo arooray in looga warramo. salmaan alfarisi radiallahu canhu baa wuxuu yimid magaaladii madaa'in. markaas dadkii magaalada jooga waxay maqleen salmaan alfarisi baa yimid, masaajidku joogaa. dadkii oo dhan baa soo kala orday. markii masaajidkaa la yimid waxaa la yidhi noo sheekee baa layidhi. markaasuu suuratu yuusuf bilaabay. marka uu akhriyay suuraddiis markuu dhameeyey, masaajidka waxaa joogay dhowr qof oo kooban baa fadhiyay. markaasuu wuxuu yidhi sheeko bini aadanna oo iyo rabana way jecel yihiin, sheekada ilaahay oga warramaya wanaagsanaydna ma dhegaysanayaan oo isaga kala tegayaan. marka tilmaamta koowaad ilaahay siiye waxaa weeye axsan alqisas, sheekooyin midii u wanaagsanayd wey. tilmaamta labaad waxaa weeye suuratu ala cimraan. wuxuu ilaahay ku bilowday alif laam miim allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum. kelimadaas oo laa ilaaha illa allah 4 cadow bay leedahay. 4 cadow waa yuhuudda, waa nasaarada, waa mushrikiinta iyo cawaanta iyo munaafiqiinta. suuraddaas ilaahay wuxuu ku faahfaahiyey laa ilaaha illa allah dadka cadowga ku ah. intii hore waxaa laga soo sheekeeyey doodoodii iyo murankoodii. inta dambaysayna
وإذ غدوت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد القتال وحلو صبني مشركينتي يا منافقين أنت كوريسنا وحلقة هذي يهودي إن ممكن نسار ضعيف وفدي النبي ويمد كلا دودا أرنك النبي الله عيسى مركي دودا الإيراتي بالله وحوليه إن هذا لهو القصص الحق كان هو قصة لبتة يدوي حق معلوم هاي ومد السواق أول ومد السحر أول ومد كريه توصن وإلهي كبيري توصنان توام هاي حق مضموحة حنبار سنتها هذي هاتو قصوينك هذي حنبارسين تشريعات هذي حنبارسين توجيهات دعوة هذي حنبارسين موضوعات عقيدة وحل الرمينية tilmaantaas buu Ilaahay siiyo iyada oo kaliya xaqa iyada oo kaliya saxa iyada oo kaliya ayaana nafci iyo dheef leh markii la qaato oo la fahmo oo nolosha lagu dhaxqaado iyadana halkaas baynu ku soo koobaynaa wassalaamu calaykum wabillahi tawfiiq